كعمة كوري تاجا كعمة كرقيليا دوني مينو حق كالبريش حق تويستك Soomaalida aan deganahay dhibaato badan baan ugu haysaa cudurrada badan baan ugu haysaa raashinka hadaan la qaadanay dhib baan ugu hayaan biyaha hadaan la qaadanay dhib baan ugu hayaan waxay noo tirsanayaan mar walba ay leeyihiin waxaa siin Itoobiya marka soo leeyihiin maxaa ku dhacay waxa bashiir yirka qabiilaynayso wax kasta oo la helo oo maartay dadka dareemayna أنا هذايا وحن كهذايا دبعت لنا يكسر وحن ما دت قحوتي أو مدفقار قبا وحي نوحي سومالي ذا كلا ولا الله ضيعة أو أفريقيا كأي لبضوا دبا وحي قرب سكسينا يعني إن عذاب النو سميان إن أقول صدان أو حقوق ذي الصوص صاران ويديدينهم وإن عذابيان دبكنا يستأذنكم وحق مترو مدفقار بانو قبنا قرع بانو قبنا تشيلكوا وانا لقيا وانا لكذا إن حنقول عرضه وانا لقلايا راشينك وانا لقوا عقابة ماشي وح مقع إيه وح مونا منك كملهم وح إدقوا بني آدم وإنسان ونوب نمشرته رفاد أدي وحنا قبل نشوف. عقبضة شيء سان يا محيط الصوت اللي بسويه. يا. عقبضة شيء سان عقبضة شيء وحويا من التقار بين ويا
midab koorkuna wuxuu yahay isleebta nagu hayaan dhibka oo dhanna dhibka oo dhanna waxa weeyaan waxa nagu wada waa Afrikaanka iyo Soomaalida ayaa noo heshiisay marka anagu cid aan u dacwoonana ma cid aan ka dacwoonana ma garanayno dad meel cidla ku indhalacbaanna codsigiina maanta xaguu ku wajahan yahay يا codsigiina maanta xaguu ku wajahan yahay caalamkan ku wajahayna hay'adaha xuquuqul insaanka iyo bini'aadanimada iyo dadka xuquuqul insaanka yaqaanaan anagu isku balaqanayna xaaladahan annaguna waxaan maxay ahayd dib weyn baan ku qabnaa ciyaalka iskoolka ma geyn karo waxaana la yiraahdaa iskoolka dinkan xabashidii baa geysaan la yiraahdaa iskoolka din iskoolkana laga xiraa labadii qof ee wada socotana maxay ahayd saasana loo garab socdaa waana Soomaalida waxaan wada yaban waxba kama sheeganayno yaban waxaan ka sheegnay ma waa Soomaalida Afrikaanka ma ka sheeganayna oo maxay xitaa hay'adda halkaan u tagno waxay xabashidii baa leeyahay albaabkana laga xiraa maxay ahayd raashin ka qaadayna saasa ma loogu dhigtaa maxay ahayd shaqada ma loogu dhigtaa waxay xabashidii baa leeyahay أنا محيط نبتقلي أنا محيط أمام بام Soomaalida أنا أقول سيدا نوايد أقاط يجي ما رمنا محيط أقاط يجي ما رمنا ولا برمنا أنا قلنا حبشي أنا اللي Soomaalida حتى قيد محيط Soomaalida كل هذا يجون وحبشي أنا اللي يجي حبشي قيدين أنا يا معيدا نقول حبشي قيدين ما قلنا لكن حبشي قيدين بنا أقاط يجي ورقدها وبعدين يا ربنا وطن كهذا هدينا العليا ما كنا قلنا Soomaaliya أنا قحوتهم بنقوهاي halkan noqoto ma kuna wadanka yigi baan rabnaa inaanu sharci nala siiyo warqadi ogaadeen nala siiyo oo wadanka in ala shida naga go'ay baan noo dhahay hada raadin hadaan ma dadka Soomaaliyeed oo xirada qaras ku nool gaaraan madara ogaadeen ana ku caawin ma wadankaygi dhibaato jirdil kubsi waxaan nimaana dhibaatooyin aad u culus oo ka mid yihiin hablaha naasaha laga gooyo wiilasha buurida laga gooyo afka laga geliyo dadka oo qabriyada meelaha dhurwaayada ay ku nool yihiin lagu aaso dadka oo iyagoo nool gaariga dabada lagaga xiro annaka mushkiladaha uga nimaana wadanka ogaadeen ma soo koobi karo meeshaan ku soo koobi karo dadka meesha taagan oo dhan u dhayin waa agoomo iyo wax abayagoo sijin ku jiraan meeshaan wax alle iyo waxay ku haystaan ma laha ummadana way ka soocan yihiin wax alle iyo waxay ka qaadan karaan ama ay codso ay dirsan karaan ma laha hay'ad ma u tagi karaan ma dacwoon karaan hatta marka ay soo galaan ma sheegan karaan meesha ay u dhashteen waayo ma sheegan karaan ma la aqoonsanaba dacwadooda ma sheegan karaan waayo wadadana la aqoonsaneen nolosha ay ku noolyihiin xaaladda ay ku noolyihiin ayga xaaladdu ku noolyahay karoon نعم dadka meesha ku nool iska nool yihiin ma wax ay ku nool yihiin xayaato ay ku nool yihiin ma jirto saudayeen waa dad iska nool ma ahina waa dad xiqdi ay dileen waqtad xiqdiga Itoobiya ka timid ka dar waxay ka heshataa ummadda Soomaaliyeed ee la midka ah meesha joogta dadka Soomaalida ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida gobolka Ogaadeniya dadka qaxootiga iminka ku jira ma jiraan wax sharci ah oo UN ka siiyaan wax sharci oo UN siiyaan ma jirto taaniyan anaka maba nalo ogolo meesha dadka lagu soo dhaweeyo dadkayga hal habeen ma seexan karaan waa la soo eriyay Itoobiyaan baa tiinana leeyahay ma xabashidiina lagu dhahaa wateeda kale dad Soomaaliya tiinana leeyahay UN ta hadaan tagno dhaa mushkiladan macna u qabsato waxay leeyihiin ma ogin ayna leeyihiin nacam dadkayga raashin ma qaataan waana la buriyaa dheelaas ku baqbaqdiyaan ku dhintaan inkastoo adinka dhibaataan aan muujinaysaan shacabka Soomaalida ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida Ogaadeniya ee u soo qaxaya dhulkani Yemen ma la soo dhaweeyaa waxna soo dhaweeyay waxna ku kala midna maana arkin la inta ma xabashiyana laakiin meesha Sanca lahaa laakiin Sanca dadkan ma tagi karaan waayo waa saaxiib ciyaal Sanca dadka jooga waa magaalo joog laakiin dadkan waa dad u baahan qaxootinimo in wax loo qabto waa dad bila aabayo ciyaal agooma naga garooba meeshan jooga wax loo qabtana ma jirto caalamku maxaa ka codsan lahayn caalamku waxaan ka codsan lahayn caalamku saan isoo kaay indhaxira intuu indhaha noo furo inuu wax noo qabto hadda fal ariga inta aan leeyahay qaxooti baan ku dhashay dal aan leeyahay ma aqaaniba haddaan soo qaxay oo wadanka Soomaaliya burburayna waxa la igu yiri qof laakiin dadka igu dhamaaday wadankayga aan carray intii farxadkeeda ku tagdana waan soo dhamaatay hadda halkan dhibid bila intaanadan aan ku joogno ehel ma balin ehelkayga wuu baabay qof aabale qof arxan hadina la celiyo hadda qof arxan ku tigsada male farxadkayga soo baxsaday meel ay ku noolyihiin male Itoobiya ma tii garda kayga soo dhamaysay haddaan ku noqon annagana waa nala dili dadkii Soomaaliyeed waxay leeyihiin waxa tiin dad Itoobiyana oo macna maadaama wadankayga ay gumaysato lama aqoonsan in dad la gumaystanahay waxa nala aqoonsan yahay inaan nahay dad Itoobiya hadii aanta imsaasan oo qaxooti ku jirta halkan hadda waxa ku jira 5 sano 4 sano ku jira Soomaaliyana wali waxa ku dhashay gobolka Hiiraan qaxooti baan ku dhashay ma garaday markii dawladda Soomaaliya oo yar bay dhacday waalidiinta way la qaxeen waalidiinta waxay qaarkood hooyada waxay ku dhimatay dagaalada Soomaaliya markii aan qaxnay
waddankayga u qaxnayna xabashadii baa aabaha iyo dadkayga waalkayga qawda anigii gabadh baan soo farxannay gabadhii Puntland waa Soomaaliya joogtaa anigina hadda qaxootiyadan aan soo galay qaxootiyadan wax daryeel aan ku haysana ma jirto murugada iyo ciilka habeen maalin lama seexano ayala ila tee ka soo qaxaya dalka Soomaalida gobolka Ogaadeniya ayaa maalinta ka dambeysay waxay yihiin kuwa ku soo qaxay dalkan Yemen ayagoo isla barahaantaana ka heleen dalka Yemen nolol aan kamid ay kaga soo qaxeen dalkooda Soomaaliya iyadoo dhibaatooyinkaas u geysanaya ciidamada hawaarida ee loo yaqaan New Booliska iyo kuwa kaashanaya Ethioopiaanka isla barahaantaana dadka qaar lagu sheegay in dhibaatooyin xooggan loo geysto halkaasi dalka Yemen wuxuu kamid yahay dalalka nabadgelyada si dadka Soomaalida ee ka soo qaxay gobolka Soomaalida Ogaadeniya iyadoo isla barahaantaana xirada qaxootiga Alqaras ee dalkan Yemen ay ku jiraan in ka badan 500 oo qoys isla barahaantaana dhammaan ka soo wada jooda gobolka Soomaalida ee Ogaadeniya xirada qaxootiga Alqaras waxay ku taalaa koonfurta dalka Yemen qowmiyadda Soomaalida ee ka soo jeeda gobolka Ogaadeniya waxay leeyihiin gudi iyo afhayeenka dadka Soomaalida ee ka soo jeeda dalka Soomaalida ee Ogaadeniya Axmed Cabdi ee arrimahaas inaan ka wareysano أحمد كسروا تلفزيون كلاس واحد كورن تابل دكتور سومالي ده كسر قحية دوكا سومالي ده أوجادين يعتبر كين كجوبران إلوجي دكتور جوبران دكتور لوجي سواء تيل جديد دا كوكسي يوي بابا تكاس مرو كسر حاجة سو عريان دوكي دباتوي كاس حيا سبب النقطة هنا مكا يوجس عرّا ودكي كاس أيام مركا هالكن كيانتاي بدها بدها كل هذا dad badan waxa ay maaragtay lagu aftuurta markay doonta saa uga soo degaan qaar madax furasho ayaa la weydiisaa oo laga qaataa qaarkii la waayana bacbaa lagu gubaa dhibaatooyin fara badan waxaan kala hadalnay arrimo fara badan UN-ka intaan ugu galabaasan ka aan rabaa inaan kaasi dhex galo bal dadka ka yimaadaya dhulka markii dadka la afduubanayo xagee la geenayo maxay tahay shuruudaha loo afduubanayo shuruudaha loo afduubanayo waxay la qabaan dadka kale ee Soomaalida iyo Oromada ee mar la afduubto ayay la qabaan iyo goonitaas kuma aha waa mid caam ah oo ka dhaxayso marka dad burcado dadka dhaca oo dadka boobo oo weeyaan marka waxa meel ay ku hayaan baa jirta oo marka qaarkood ay dumarka ku farxumayaan ragana ay xitaa rag ay ku farxumayaan marka taas waa mid laga sameeyay okay dadka loo geysanaya saaka jirkooda bacda lagu gubiya dadka siyaabaha loo gubiyo maxaa loo sameeyaa dadkaas inta bac dabka la geliyo oo jirkooda la qaawiyo ayaa lagu shubaa ayaa lagu gubaa oo iyadoo ku tifqayso ku da'ayso marka qof waxaan usoo telefoon looga helo dadkooda marka la xiriiro ay lacag ugu soo diraan burcada hal lacag laga qaadanayo lagu xiriyo dadka la soo kala qabanayo 200 ilaa wixii ka sii badan ayaa laga qaadaa wada idinka ka gudi ahaan hadafii gudigii Soomaalida dadka soo jeeda gobolka Ogaadeniya ee ka soo cararaya dhibaatooyinka u geeysan ciidamada biyo booliska adinka aantiin ma kala hadasheen hay'adaha maamulka iyo dawladda taas ayaan u taaganay inaan kala hadalno arrintaas weeyaan arrinta aan mar walba u taaganay inaan kala hadalno waan kala hadal UNHCR arrimaha DRC-ga waliba dadka markay soo ay ka soo degtaan doonyaha waxa uu qaabilsan hay'adda DRC waxa jiray xitaa laftiga DRC-da in cusuriyad dhexdeeda ay ka jirto oo dad maaragtay aan fahmayn dadka marka waddanka imanayo oo la oranayo lagu cabsigelin haddii Ethiopia sheegtay inaan waxba loo qabanayn marka sidaa daraadeed ama Ogaadeniya hadday yiraahdaan Ogaadeniya kan Soomaalida Ogaadeniya nahay wax loo qabanayo ma jirto marka sidaa daraadeed baa loo sheegaa la yiraahdaa gobolada Soomaalida kamid ah sheegta si wax leeyahay ku qabto markay halka yimaadaana hal maalin kaliya wax ka badan cunto la sii raashin ma jirto dadka kale xagga laga siiyo 5 cisho oo 5 cisho lagu hayo iyaga markaa wax la yiraahdaa baxa lagu malihiin waxba okay Ahmed dad badan baan la soo sheekaystay oo ka soo jeeda dhulka Soomaalida Ogaadeniya dad badan ayaa sheegaya inay dhibaatooyin kala soo kulmeen dhulka kale dad badan ayaa soo galayo intii ay halkan imaanayeen dadkaas aan wali dad waxa jira aan aqoon aan la siinin qaxootinimada dalkan Yemen dadkaas adii maxaa la sheegtaa dad badan baa jira oo wali la siin aqoonsi magaalada siyaasadeed maadaama ay uma UNHCR wali uma ictiraafin dadkan markay ay saa uga soo degaan in la siiyo sharcigooda oo magaalada siyaasadeed warqado foom baa la siiyo foomkaas ay buuxiyaan foomka kadibna muddo dheer bay qaateen 6 bilood bay qaadataa in sharciga lagu siiyo marka arrimahaas kala hadalay dhowr jeer baa waqti UNHCR laba jeer ay noo soo direen waan kala hadalay arrintaas waxyaalo badan waan isla eegnay laakiin codsigayeegii rajadii markii hore la geliyay ahayd 100% waxay helayno dib baan looga maaragtay laabtay waayo maamulaha camp managerka Emmanuel Uhuru
Kurukundo ayaa markaas sabab u ah oo isaga iyo dad kale oo iskaashaday muddo ayaa la hor istaagsan mar walba arrimaha qadiyadeeda inay hormarto oo asylum seeker dadkaygu ay helaan ay xaq u leeyihiin protection iyo gargaar caafimaad iyo daryeel waxbarasho wax walba laakiin taas oo dhan kuma haysano. Ahmed haddaad tihiin qaxootiga Soomaalida ka soo jeeda dhulka Soomaalida ogaadeenaya rajada aad leedihiin rajada aan leenahay waxa weeyaan in aanan marnaba aanan ka rajo dhigin ilaa aan la fadhiisano oo cid walba oo maarinta qusaysan kala hadalno arrin kasta tallaabo kasta oo qaadi karno waan sameeynaa. soo wadaduba arrimaha dadka Soomaalida ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida ee ogaadeenaya ayaa waxay u muuqdaa kuwa cakiran kadib markii ay soo baxayaan eedeymo fara badan oo ka imaanaya dhanka hay'adda arrimaha binaad u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR isla mar ahaantaasna ilaa iyo iminka ay ka heleen sharciga qaxootinimada ee dalka waxaana loo filayaa waqtiyada soo socday inay arrinta sidaan iska bedesho kadib markii ay sameynayaan qaxootiga Soomaalida ee qaxootiga ka soo jeeda gobolka ogaadeenaya mudaharaadyo xooggan oo looga soo horjeedo nolosha dalka Yemen iyo weliba sharci la'aanta UNHCR. محمد بن مسكرات TV الخرس